balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Saciid Anteno. mahadsanid Kawsar. dalka Afghanistan ayaa weli waxaa ka sii socda dagaallo iyadoo dhakhaatiirta ay ka digayaan in dhibaato dhanka caafimaadka uu soo wajahayo dalkani. magaalada dhacda dhanka koonfureed ee Lashkar Gah ayaa waxaa soo food saaray dagaallo culus halka dhakhaatiirtu ay sheegayaan in shaqada hortaalla baaxaddeeda ay dhaaftay awooddooda. goobaha kale sida Kaabul ayuu Dr. Weli Wullah oo la shaqeeya dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF isna dhankiisa wuxuu sheegayaa in dagaalada aadka u soo xoogaystay ay sababeen in shaqaalaha caafimaadku yaraadaan maadaama dadku ay ka baqayaan isu socodka magaalada dhexdeeda. xagga agabka wax dhibaato ah nagama haysto balse waxaan walaac badan ka qabnaa dhinaca shaqaalaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka sababtoo ah shaqaalaha intooda badan guryahooda ay joogaan oo nooma yimaadaan balse shaqaalaha kuwooda hadda hosbitaalada ku sugan ee shaqeeya aad bay u daaleen oo guryahooda ma tegaan marka la eego niyad samidoodana aad bay wanaagsan tahay balse waxaan si aadan ugu ammaanayaa dadaalka ay la yimaadeen. 11 milyan oo qof oo ku nool Wuhan ee dalka Shiinaha halkaas oo ah ubuucdii goobtii uu ka soo unkaday cudurka COVID-19 sanadii 2019 ayaa dhammaan dadkeeda waxaa laga baarayaa cudurkani. ku dhawaaqista ogeysiiskani ayaa yimid maalmo kadib markii kiisas gaaraya 7 oo ah nooca aadka u faafa ee Delta laga helay dadka ku nool halkani. ninkii hogaaminayay urur ka caawiya siyaasiyiinta reer Belarus kuwaasoo u baxsanaya dibadaha ayaa laga helay meydkiisa oo la daldalay beerta Kiev oo lagu nasto ku taala xarunta Ukraine. Vitaly Shishov ayaa maamulayay xarun ay leeyihiin reer Belarus oo ku taala Ukraine. Vitaly xaaskiisa ayaa sheegtay in ninkeeda aanu soo noqon ka gadaal markii uu u baxay orodka rucleynta. booliiska maxalliga ayaa baaraya dhammaan waxyaabaha ku gadaaman dhimashada ninkani oo ay ka mid tahay daldalaadda. qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ku eedeeyey madaxda Lubnaan inay u jeer dhaafeen dambiilayaashii lala xiriirinayay qaraxii dhibaatada qarada weyn geystay ee ka dhacay magaalada Beirut. qaraxani ayaa waxaa ku dhintay dad gaarayay 200 oo qof. kooxo u ololeeya xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay hay-adda Human Rights Watch ayaa helay cadeymo culus oo sheegaya in saraakiisha qaar ee dowladda inay ogaayeen in walxa qarxa oo halis ku ah nolosha bini'aadamka ay ku xariisan yihiin bakhaarada dekedda Beirut. madaxweynaha cusub ee mayalka adag ee haatan u la wareegay hoggaanka dalka Iiraan ayaa sheegay inuu baadigoob u gelayo sidii uu ku qaadi lahaa cunuqabateynta saaran dalkiisa ee uu Maraykanku saaray taasoo ragaadisay in badan. ha yeeshee Ibrahim Raisi ayaa carabka ku adkeeyey khudbadiisii caleemasaarka inaanu isku xiri doonin heerka nolosha qarankiisa iyo shisheeyaha isagoo taa ula jeeda inaanu ka filayn aqbalaadda kaalmo kaga timaada dibadda si dib loogu dhiso dhaqaalaha gebidhacleynaya ee Iiraan. ugu dambayn dalka Spain ayaa halkaasi waxaa lagu soo dhoweeyey bishii ina dhaaftay Juun ee sanadkan 2021 dalxiisayaal ka badan 10 laab marka loo eego bishii Juun ee sanadkii hore taasoo uu cirka ku tulnaa heerkiisa faafitaanka iyo dhibaatada cudurka COVID-19. hay-ad soo saartay tirakoobka rasmiga ah ee dalxiisayaasha ayaa sheegtay in 2.2 milyan oo dalxiisayaal ah inay yimaadeen Spain bishii ina dhaaftay ee Juun ee sanadkan halka ku dhowaad rubuc dadkaasina ay ahaayeen kuwo u dhashay dalka Jarmalka. intaasi waxay inagu dhan warkii aan dib idinku celiyo Kawsar iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Kawsar Saciid Anteno aad baad u mahadsantahay. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay ee waxaa goorsii horeysay la doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda gooniisutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland waxaana gudoonka loo doortay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka socda xisbiga wadani. gudoomiyaha la doortay ee Cabdirasaaq Khaliif waxaa tartan adag uu kula jiray Yaasiin Xaaji Maxamuud Faraton oo ka socda xisbiga talada haya ee Kulmiye waxaana sidoo kale la doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad. haddaba faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta doorashada gudoonka golaha wakiilada waxaan goorsii horeysay ka waraystay wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmed. Kawsare loolan adag oo u soo dhaxeeyay dhinacyada ku tartamayay shir gudoonka oo
muddaba soo socday marba marka ka dambaysa sii adkaanayey maantana la gudagelayba doorashadii lagu kala baxayey waa lagu kala calaf qaaday waxaana la doortay shirgudoonkii golaha wakiilada 5 sannadood ee soo socda hogaamin doona waana gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo gudoomiye ku-xigeen labaad ayaa la doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ay ku tartamayeen cabdirasaaq khaliif axmed oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani kana tirsanaa isbahaysiga mucaaradka iyo yaasiin maxamuud xiir faratoon oo ka soo baxay xisbiga dowladda oo loolankoodu aad u adkaa ayaa saaka loo kala codeeyey waxaana ku guulaystay gudoomiyenimada golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed oo helay 42 xubnood oo ah xildhibaanadii u codeeyey halka uu yaasiin maxamuud xiir faratoon uu ka helay 39 cod xildhibaanada codkooda waxaana golaha joogay 81 xildhibaan iyadoo golahu yahay 82 xildhibaan baa ka maqnaa markaasaasay u kala heleen sidoo kale waxaa la doortay gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa loo doortay Siciid Mire Giire oo ka soo baxay xisbiga ucid balse isbahaysi la wadaagay xisbiga kulmiye waxaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay Cali Xamed Jibriil oo ka tirsanaa isbahaysiga mucaaradka sidii jawiga golaha buuq ayaa ka jiray saaka marka buuqa iyo fowdada halkaa ka dhacday maxaa u sabab ahaa dhowr qodob baa la isku khilaafay markii ugu horreysay golaha waxa furay gudoomiyaha maxkamadda sare oo halka khudbad dheer ka jeediyey khudbadaasi kadib waxa uu sheegay in fadhigii uu u bilaabmayo xildhibaanada markii uu dhaariyey kadib inay fadhigoodii yeelanayaan waxaana uu sheegay fadhiga inuu gudoominayo xubin iyaga ka mid ah oo ah xubinta ugu da'da weyn xubintaasi waxa uu sheegay inay tahay sida komishanku ay ugu soo gudbiyeen yaasiin maxamuud xiir faratoon oo uu noqday ka ugu da'da weyn sida uu gudoomiyaha maxkamadda sare uu sheegay saasaa loogu yeeray kursigii shirgudoonku soo fadhiistay si uu doorashada dhacaysa uu gudoomiyo laakiin buuq baa bilaabmay sababtoo ah waxa uu yahay isaga laftigiisu musharax arrintaasi waxaa si weyn uga biyadiiday xubnaha xildhibaanada ah ee ka soo jeeday isbahaysiga mucaaradka ah oo arrintaasi ka sare kacay buuqna ka keenay waxaana ay sheegeen inaanay xaq ahayn ninkii ay la tartamayeen in uu isagu codadka u tiriyo oo shirkii uu gudoomiyo arrinta waxaa markii dambe soo dhex galay gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan oo goobta joogay cabashadii bay halkaasi uga gudbiyeen oo ay la hadleen marka isaguna wuxuu soo jeediyey in gudoomiyaha maxkamaddu uu arrintaasi shirgudoominta uu la wareego si xal loogu dhameeyo marka arrintii baa la isla qaatay marka shirkii doorashadaba waxa gudoomiyey gudoomiyaha maxkamadda sare arrintaa khilaafkii markii laga soo gudbay khilaaf kale ayaa bilaabmay waqtigii codaynta ayaa sidii loo kala horreysiin lahaaba iyadana buuq ka dhashay ma alphabetic baa loo eegayaa magacyo mise xisbiyadu siday u kala horreeyeen ama u kala cod badnaayeen markii arrintaa lagu kala bixi waayeyna bakhtiga nasiib baa loo tuuray saasaa lagu kala horreysiyey arrimahaasaa buuq badan iyo xamaasad badan golaha ka dhex abuuray ka waran guud ahaan sidee magaalada hargeysa looga dareemayaa doorashadan maanta dhacday waa war natiijadiisa aad indhaha loogu hayey laga wada dhur sugayey muddo dheer lasoo sugayey saakana meel qof kasta meel kasta oo uu joogo oo xogteeda uu sugayey golaha dad badan baa yimi waxaa kale oo jiray in ammaanka golaha aad loo adkeeyey wadada hormarta golaha aqalka wakiilada oo ah wadada ugu weyn ee magaalada Hargeysa baabuurta ugu badanna ay maraan ayaa xidhnayd wadooyinkaasi dhinacyada ay ka soo galaan ayaa ciidamada la dhigay RRU-da iyo kuwa booliska oo aad u tiro badan iyo tiknikooyin fara badan marka waxaa la joojiyey socodkii gaadiidka oo baabuurtii way xanibnayd goor dhaweyd duhurkii ahayd ayaa la sii daayay baabuurta oo inay wadada maraan loo ogolaaday markaa subaxnimadii saaka ilaa duhurkii wax baabuur halkaasi ma maraynin waa tahay aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayuu kaasi ahaa ee xubnaha la doortay waxa ay la kulmeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi waxa uu soo dhaweeyay doorashada gudoonka golaha maruu madaxweynaha ka hadlayay doorashada maanta dhacdayna waxa uu yiri sida tan maanta waxaan baryeerayaa odayaashii maanta maamulay arrinta uu kow ka yahay gudoomiyaha guurtida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shir walba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qarannimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamulay iyo xooghayntoodii iyo taariikhda ayna gaarsiiyeenna waa ku hambalyenaynaa ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna u ogaanaya hawsha ay qabteen waxaynu u mahadnaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyey golaha wakiilada
cusbaa ee doorasho aada isugu dhow ku jiray sida gobonnimada leh iyo isdhowridda hadday saqar yar dheesha laysu qabanayay ee laysu aamusinayeyna quruxdii aanu kaga soo baxnay maanta somaliland oo dhan baa guulaysatay nin quri ma guulaysan xisbina ma guulaysan somaliland oo dhan baa guulaysatay dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in cadowga somaliland uu jabay marka la eego qaabka ay doorashadaasi u dhacday maanta waxaan leeyahay waa maalin somaliland faanayso anuu magaciina somaliland hadda ku faanayana cadowga somaliland waxaan leeyahay somaliland halkaasay gaadhay somaliland cadowga qura ka soo horjeeda ee maanta xamar soo rafaraya waxaan leeyahay iyo inta af soomaaliya ku hadashaba waa daawanayseen somaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qarannimada inay u midaysan tahay oo qof waloo somaliland oo qarannimada ilaalinayo cadowga somaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaado waa tahay kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha somaliland muuse biixi oo ka hadlayey doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee maanta dhacday weli halka warbixinadaas aad ka dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba ra-iisul wasaaraha soomaaliya roble oo la kulmay 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka somaliland ayaa waxa uu sheegay in doorashadaas guddoomiyenimada guddiga ee hore loo dhisay la baabi'iyey iyo inuu dib isu dooran doono sidaa daraaddeed goobta iyo wakhtiga ay doorashadu dhici doontana lasoo sheegi doono haddaba wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa hadda khadka si toosa ugu jira ibraahim duhur wanaagsan bal inoo waran kowsaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu go-aankaasi gaaray kadib markii maanta uu kulan la yeeshay 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somaliland khilaaf baan ayaa guddigaasi ka dhex jiray waxaa horey u dhacday in xubno ka tirsan guddiga ay doorasho laba dhinac sameeyeen inkastoo xafiiska ra-iisul wasaaruhu oo aqoonsanaa markii hore doorashadii ay sameeyeen xubno 7 ah guddigu wuxuu ka kooban yahay 11 xubnood markii hore waxaa loo qaybsaday min 4 xubnood inay soo kala magacaabaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka cabdi xaashi cabdilaahi 4 kalena uu soo magacaabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed khadar 3 xubnoodna waxaa soo magacaabayay xafiiska ra-iisul wasaaraha marka dabcan 7 xubnood oo guddiga ka mid ah ayaa hore waxay u doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen taasoo ka caraysiisay 4 kale ee xubnood ee uu soo magacaabay guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi khilaaf baan ayaa ka dhashay siyaasiyiinta reer waqooyiga ee cabdi xaashi hogaaminaya waxay qabeen in 8 xubnood ay isdoortaan saddexda ra-iisul wasaaruhu ku soo daray guddigana aanay doorashada ka qayb gelin hadday simaana xal kale la raadiyo oo xalkaasna waxaa ka mid ahaa in guddoomiyaha cidi qaadato guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha guddigana dhinaca kala qaata laakiin marnaba arrintaasi ma dhicin muddo dheer ayuu khilaafkaasi soo jiray ugu dambeyntii ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in la baabi'iyey doorashadii hore ee guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somaliland lana qaban doono doorasho laakiin doorashada soo socotay uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlayo sida ila ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ay b b c da u sheegeen 11 xubnood ayaa ka wada qayb geli doona taasoo markii horeba ay diidanayeen dhinaca cabdi xaashi cabdilaahi lama oga marka dhinaca cabdi xaashi siday u aqbali doonaan doorashada kale ee guddigu samayn doona ee soo socota waxaa kaloo ila ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay sheegeen in doodihii ka taagnaa halka doorashada lagu qabanayo oo sidii 2016 dhacday kuraasta reer waqooyiga oo lagu qabtay xeregaadiid in hadda laga yaabo in lagu qabto hangarka diyaaradaha garoonka afisyooni ee ciidamada cirka halkaasoo markii hore dhinaca cabdi xaashi ay aad u raadinayeen ama ay aad ugu doodayeen in doorashadooda lagu qabto halkaas ay ciidamada booliska amisomna ay waardiiyeen marka dabcan waxaa moodaa ra-iisul wasaaruhu inuu door dhexdhexaadina uu dhinacna wax ka reebay dhinacna uu waxsiiyey dhinacna wax ka reebay dhinacna waxsiiyey marka dabcan waa eegi doonaa falcelinada kale ee kasoo baxa dhinacyada khilaafku ka taagan yahay arrintan kawsare aad baad u mahadsan tahay ibraahim maxamed aadan wariyahayaga magaalada muqdisho ayuu ahaa oo khadka toos ugu jiray kana warbixinayay faahfaahinta kulanka ra-iisul wasaaraha iyo 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka ee somaliland markana dagaalada u dhexeeya soomaalida canfarta ee dalkaasi etoobiya ayaa la sheegay inay mar kale dib usoo cusboonaadeen xubin sare oo ka socda qaramada midoobeyna waxay maanta booqasho ku imanaysaa dalka etoobiya xilli arrimaha bini-aadanimada ee deegaanka tigrey weli laga dayrinayo dagaalka u dhexeeyey dowladda dhexe ee etoobiya iyo fallaagada t p l f oo halkaasi kasii socday waxay jabhaddu dalbatay in la meelmariyo shuruudihii ay horey ugu xirtay xabad joojin tigrey ka dhaqan gasha
wararkii ugu dambeeyey dalka Itoobiya waxaa goor dhaweyd iga waramay wariye Ismaaciil Buurgaabo. sida aan la wada soconaba kowsaray dagaal ayaa dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ku dhex maray deegaanada canfarta iyo soomaalida xadka ay wadaagaan laakiin shalay waxaa lasoo sheegay oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen in canfar ay soo weerartay tuulooyin hoos yimaada magaalada candhuufo oo ka mid ahayd saddexda magaalo ee markaasi ay soomaalida degan tahay ee lagu wareejiyey canfarta ee markaasi muranka uu ka taagan yahay qabale ama tuulo lagu magacaabo shakle gaar ahaan aagga loo yaqaano laba gole oo 50 kilomitir magaalada candhuufo u jira ayaa halka soo weerareen canfarta ayaa leeyahay inkastoo dhanka kalena aanan ka xaqiijin halkaasi dagaal ayaa ka dhacay dhaawac wuu jiraa 2 qof ah ilaa iyo 1 qofna uu ku dhintay iyadoo sidoo kale ay taagan tahay xaaladii magaalada garbaciise oo labada dhinacba ay ka fadhiyaan kadib markii dirir kharaar ay ku dhex martay canfarta iyo soomaalida magaaladaasi 27 bishii July aynu soo dhaafnay ma jiraan wax ka hadlay oo dhanka dawladda dhexe ah ama isku day lagu dhexdhexaadinayo waxaana muuqata in aan isku hub aruursanayo kowsaray Ismaaciil waxaa jira warar sheegaya in meydad laga helay webi dhex mara ee Suudaan iyo Itoobiya warkaas maxaanu ka haynaa dawladda Soomaaliya ka hadashay kowsaray ku dhawaad 40 meyd ayaa soo caariyay baa leeyahay webiga Takase dhanka Itoobiya looga yaqaano setetna xagga iyo Suudaan laga dhaho oo ah dhanka bari ee dalkaasi Suudaan ayaa mas'uuliyiin ka tirsan gobol kamid ah gobolada Suudaan oo lagu magacaabo Kasala ayaa sheegay oo qaar ka mid ah warbaahinta caalamka u sheegay inay soo caariyeen meydad ay filayaan inay ka yimaadeen dhanka magaalada Xumura halkaas oo ay la sheegayo in maaragtay dad shacab ah lagu laayay waa halkii dirirta ay ku dhex martay ciidamada Itoobiya iyo fallaagada TPLF waxaa la sheegayaa in dagaalkii halkaa ka dhacay dad meyda iyo dad lagu laayay oo shacab ah in imanka webiga maadaama uu xilli roobaad yahay ay biyo galeen oo ay ka soo caariyeen dhanka iyo webigan Takase dhankiisa Suudaan waxaa loo sheegay wakaalada AB oo kale in ilaa iyo 40 ilaa 50 in u dhaxaysa inay yihiin meydadka la arkay iyadoo aan la xaqiijin karin dawladda ayaanan ka hadal arrintaasi oo eedayntaasi aanan ka jawaabin inkastoo eedayntaasi ay soo jiidatay inay ka hadlaan qaar ka mid ah hay'adaha caalamka gaar ahaan haweeneyda la filayo inay soo gaadho dalkan Itoobiya ee lagu magacaabo Samantha Power ee markaasi hogaamisa hay'adda USAID ayaa waxa ay walaac ka muujisay sida ay sheegtay warar ka imaanaya dhinaca iyo Suudaan barigeeda iyo iyadoo sheegtay in meydadkan la helay ay la mid yihiin sheekooyin ay markaasi la wadaageen qaxooti dalka Itoobiya ka soo qaxay gaar ahaan magaalada deegaanta la yiraahdo Xumura deegaanka Tigray ka mid ah sidoo kale waxa arrintani ka falceliyay haweeneyda lagu magacaabo Alice Werimu oo ah taliyaha gaarka ee Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhanka ka hortagga xasuuqyada waxa ay aad uga walaacsan tahay xaaladda soo xumaanaysa ee markaas ay ku tilmaamtay isirbeesiga ka jira deegaanka Tigray marka sidee Itoobiya u aragtaa imaanshiyaha madaxa hay'adda gargaarka ee Mareykanka mas-uuliyiin badan oo ka mid ah dowladda Itoobiya iyo qalinleyda ku difaaca dhanka baraha bulshada waxay walaac badan ka muujinayaan Samantha Power oo hadda Suudaan ku sugan oo la filayo in dalka Itoobiya ay imaato waxa aad loo hadal hayaa madax banaanida Itoobiya in la ilaaliyo in sidoo kale shaki badan laga muujiyo Samantha Power inaysan u soconin furfuridda gargaarka sidii u gaari lahaa Tigray balse waxay u dhigayaan tuuliyiin badan oo Itoobiya ka mid ah inay tan tahay isku dayeyso inay ku samayso isbeddel xukuumadeed taas oo u muuqata in walaac badan ay ka qabaan tuuliyiinta Itoobiya waa tahay Ismaaciil Buurgaabo aad buu u mahadsan yahay raalli ahada dhegeystayaal halkaan iri xubin sare oo ka socda qaramada midoobay ma ahe waa madaxa hay'adda USAID ee Mareykanka oo lagu wado inay booqasho ku tagto Itoobiya weli halkaad nagala socotaan waa BBC mas-uuliyiinta magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa baaritaanka fayraska corona ka bilaabi doona guud ahaan magaaladaas kadib markii kiisas hor leh oo xanuunkaasi laga soo wariyay halkaas Wuhan oo ah magaalo oo markii ugu horeysay uu ka dilaacay fayraska corona ayaa waxaa markii ugu horeysay laga diiwaan geliyay kiisas xanuunkaasi ah faafahinta warkaasi waxaa inoo haysa Samiir Cabdullaahi Jaamac magaalo ay ku nool yihiin 11 milyan ayaa noqotay xudunta cudurka kadib markii kiiskii ugu horeeyay laga helay 2019 Shiinaha ayaa haatan u muuqda inuu ka mid yahay wadamada uu sida weyn ugu baahayo cudurka muddo bilooyin ah
300 oo kiis ayaa la diiwaan geliyey 10 maalmood gudahood 15 gobol oo waddanka ka mid ah ayuu saameeyey cudurka taas oo keentay in dowladda ay bilowdo baaritaan xooggan iyo in ay soo rogto xayiraadaha dhaqdhaqaaqa saraakiisha ayaa shaaciyey in fayraska dardar u faafi karo afaracan deltaha ah xilligan lagu jiro dalxiiska waddanka gudihiisa ah tallaabada Wuhan ayaa imaanaysa iyadoo Shiinaha uu shaaciyey 90 kiis oo cusub maanta guddiga caafimaadka qaran ayaa sheegay in 61 kiis oo ka mid ah kiisaska ay dadka gudaha isu gudbiyeen uu ka badan yahay marka la barbar dhigo 55 kiis oo la diiwaan geliyey maalin sii horreysay Shiinaha ayaa si weyn ugu guuleystay xakamaynta fayraska si kastaba ha ahaatee soo laba kacleyntan cusub oo markii ugu horreysay laga helay shaqaalaha eelboorka Nanjing oo ka mid ah meelaha aadka ugu mashquulka badan ayaa walaaca sare u qaaday saraakiisha ayaa baaray 9.2 milyan oo ka mid ah dadka degan Nanjing 3 jeer waxaana 100,000 oo qof lagu soo rogay xayiraadaha dhaqdhaqaaqa balse maalmihii fasaxa gobolka Wuhan ayaa isu bedeshay xudunta cudurka halkaas oo kiisaskii ugu dambeeyay laga soo warinayay waxaana la aaminsan yahay in dad ka yimid Nanjing ay dhawaan booqasho ku yimaadeen magaalada samiir aad bay u mahadsan tahay wararkii ciyaaraha markana haddii aan eegno Harry Kane oo bartilmaameed koowaad oo ah kooxda Manchester City ayaanan kusoo laaban garoonka tababarka ee kooxda sida la filayay Isniintii iyadoo muran uu ka taagan yahay sii joogista kooxda Tottenham qorshaha ayaa shalay ahaa in weeraryahanku maro baaritaanka fayraska corona ka hor intaasan tababar qaadan waa Isniintii Harry Kane waxa uu fasax ku jiray muddo 3 toddobaad ah kadib markii xulka Ingiriiska uu ka caawiyay inay gaaraan finalka koobka qaramada Yurub ee Euro 2020 kooxda Spurs kama aysan helin sababta 28 jirka uu uga qayb gali waayay tababarka ay kooxdu lahayd waxaa la fahansan yahay in Kane uu heshiis la galay ee gudoomiyaha kooxda Spurs Daniel Levy ee ah inuu kooxda ka tagi karo markana barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Cabdisalaad Nuur oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Mahad Salaad Nuur waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Canada sanadii 2016 haddaba haddii uu namaqlay Mahad Salaad Nuur ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdisalaad Nuur ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Zahra Ahmed Xasan oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Samatar Axmed waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Malaysia 2001 haddaba haddii uu namaqlay Samatar Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zahra Axmed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Ikraan Cali Saalax oo joogto Dobley waxay baafinaysaa Nimco Cali Saalax waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2016 haddaba haddii ay namaqlayso Nimco Cali Saalax ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ikraan Cali Saalax ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Saafi Jaamac Samatar oo joogto Baardheer waxay baafinaysaa Cabdikhani Cabdi waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2005 haddaba haddii uu namaqlay Cabdikhani ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Saafi Jaamac iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Xaashi Nuur Aadan oo jooga Geedweyne waxa uu baafinayaa Geelle Nuur Aadan waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Jarmalka sanadii 2014 haddaba haddii uu namaqlay Geelle Nuur Aadan ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaashi Nuur Aadan ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Faysal Abuukar Cabdulaahi oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Fuad Abuukar waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka Qatar 2014 haddaba haddii uu namaqlay Fuad Abuukar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faysal Cabdiqaadir iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Duniyo Daahir Yuusuf oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Farxiyo Daahir Yuusuf waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 2015 haddaba haddii ay namaqlayso Farxiyo Daahir Yuusuf ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Duniyo Daahir Yuusuf ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Raxmo Cusmaan Diiriye oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Warsame Diiriye waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2007 haddaba haddii uu namaqlay Warsame Diiriye ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Raxmo Cusmaan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer Sacdiyo Cabdiqaasin oo joogta Tuulo Barwaaqo waxay baafinaysaa
aaniso cabdiqaasin waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso aanise cabdiqaasin ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiya sacdiye cabdiqaasin iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer cabdiyo biixi guhaad oo joogto baardheer waxay baafinaysaa biixi guhaad yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka imaaraadka 2013 haddaba haddii uuna maqlayo biixi guhaad ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdiyo biixi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere maxamed cali kooshin oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa nasre cali kooshin waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan ruushka sanadkii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso nasre cali kooshin ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye maxamed cali kooshin iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer xasan cabdi saalax oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa maxamed cumar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cumar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xasan cabdi saalax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere cabdiraxmaan cali gaas oo jooga beledxa waxa uu baafinayaa xasan ibraahim gaas waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suuriya sanadkii 2012 haddaba haddii uuna maqlayo xasan ibraahim gaas ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiye cabdiraxmaan cali gaas iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere xabiibo cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa xamdi cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jabuuti 2015 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xabiibo cabdi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere nafise mukhtaar cilmi oo joogta dhobley waxay baafinaysaa mukhtaar cilmi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga sanadkii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar cilmi aadan ama way jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye nafise mukhtaar cilmi iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere samiir aadan cusmaan oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa zakariye aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan tanzania 2013 haddaba haddii uuna maqlayo zakariye aadan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo samiir aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere axmed aadan cabdicasiis oo jooga faanweyn waxa uu baafinayaa sundus aadan cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadkii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso sundus aadan cabdi ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye axmed aadan cabdicasiis iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ubax ibraahim ciise oo joogta baardheer waxay baafinaysaa maxamed ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan china 2010 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed ibraahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ubax ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere nimco mursal xaaji oo joogta kormaarey waxay baafinaysaa hindi farxaan cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka kenya sanadkii 2010 haddaba haddii ayna maqlaysa hindi farxaan cumar ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye nimco mursal xaaji iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer luul miro jaamac oo joogto baardheer waxay baafinaysaa dahabo miro jaamac waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan mexico 2012 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo mire ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo luul mire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay sucaado daahir nuur oo joogta baardheer waxay baafinaysaa xamdi daahir nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlaysa xamdi daahir nuur ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sucaado daahir nuur iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer baafintiina maanta waa naginta faysal iyo caaisho way mahadsan yihiin inta ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo